نبي محمد نبا ويمد نك النبي قوي يمد أبو موسى الأشعري بقى لورنجري حكون رسولك إله يو يمن بير ليبان النهاية بيرتا وحنا كبرنا كذا أن نعبني نبي سؤال بويديي ورمكو صخران تنبو يريو وحمسكين بدلان والصخرة ده وحى ليدا الله بشي وحي كينا أضافر الفرعونا وحي كسيحيات كعي ويدو الدال كجوري ده وفطور وي ونوع صخرة ده كم ده وحي انتو كوكعيو شركاجي نورمال كها وحكا بدلون نشاط كوكو أبورانا اسنا دراجس وي لبدا بدراجس كوكو كينا وحي رسولك ويدي رسولك إلهي وجيت كاس محان يلا محلال بمسوا حاران وحوري أمسكر هو فرعوني ما لقوا دريمها وحوري ها نبي قو وحو كويري وحاران اسكده كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر حرام وحديث صار ارتيوي شيء مركز الحلال لماذا حرام لماذا كيس واحد فيرنيسا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث waxaad fiirinaysaa shaygu ma khabiis baa mise waa طيب war macaana geel iyo qaad baa isku mid ah ma muus iyo qaad baa isku mid ah jaad iyo muus ma isku mid baa ma hilib ari iyo qaad baa isku mid ah isku mid ma aha qaadku marka caafimaadka horta wax buu dhimaa calooshu qallajiya maskaxda wax buu dhimaa taranka wax buu dhimaa waxa weeye wixii maa'ul xayaaga ama waxaad wax ku dhali lahayd baa waxa la sheegay heblaayo intuu mirqaamay laba cagsi buu shaqeeyaa waxa raga qaar markay mirqaamaan haweenka oo kale noqdaan wayba dhadigaadaanba islaamaha way iska agseexan midina waxa weeye habeenka haddaanu xaaraan samaynin xalaal hadduu ku waayo islaan inuuna aragmaba joogi karaba waa laba cagsi u shaqeeyaa qaadku markuu dhiigaagu barto mid baa laga sheegay heblaayo soo carar mise tagta iska joog buuri isla fahmaynaa wuxuu wiil hebel la yiraahdo isaga difaaco warifadiisa ah oo xaafidul quraana ku dhali lahaa baa dhulka iyo ciida galay heblaayay soo carar buuri markuu mirqaamay gabadhii maxay tiri walle aniga iyo qudaana la wada qabin qudaha miyaa taqaan adiga kuma soo gaareen bahal qallalan oo baarixa ku yimid iskaba tagtay iska tag buuri iska joog waxa weeye reeruhu burburiya waa mushkila ijtimaaciya weey caruurtaadii oo qatan baa waxoogaa lagu siinaya dabadeedna markaasaad intiiba qaad ula kacaysaa bal wadaa keenaysa inaad qaad ula dhaqaaqdo nin baa wuxuu igu yidhi wixii kuugu xumaaya qaad kaa soo maray ii sheeg baan ku dha wuxuu yidhi reerkii baanu rarnayoo baadiyaan ahaynoo waan guurnayoo gurigii baan ka baxnayoo habeenkii baanu meel degnayoo tu balaayo ahoo qaad igu lahayd baa suuqa igu aragtayoo kuleetiga iska kaylaalaadisayoo way ceebayso dhulka igu jiidoo sharaftiiba iga xayuubisay markaasaa waxaan is idhi walle iyo bile berri ridii heblaayahayd intaad soo qaadda waa xilli abaara ridii heblaaye intaad soo qaadda suuqa intaad ugu soo xidha islaanta in lacagta iska siiso wuxuu yidhi ridii baan islaantii kala hadlay waxay tidhi ma rida keliyahoo adhiga ka riman abaartaa lagu jiroon carruurta aad ugu caddaysid leehay hadday dhasho waad rabtaa inaad gaddo walle inaadan gadin bay tidhi walaalay rida aan gado bal waxna aan idinka soo miiso daynna aan iskaga bixiyo warqadaydaa kaa xigta bay tidhi ridaasood gaddo waa qoys iska cayrahoo magaalada ag degan oo adhi maaha geel iyo lo iyo waxa aan lahayn wuxuu yidhi habeen barhkii markay ahayd baa intaan toosay baa waxaan damcay buu ridii sida libaaxa intoon la dhaco inaan sii qaadoon magaaladii caawanimo ku dhoobaba oon gurigii hebel ku hor xidhoon subaxdii idhaahda waryaa iga iibinaya islaantaasi hadday soo toostaanoo lacagtii qaatay ha timaadeen ridii baan qaaday si aanay u ciin baan afka iyo sanka isku qabtay buu yidhi xog ilaan hadday qaaq tidhaa islaantu way soo kaci way iga ridii adhigii intaan u tallaabsaday baan ridii la soo boodo afkii iyo sankaan ku dhegay buuri dagaalkii igu jiray iyo xarbihii ma xusuusan buuri warridu iyayna kaa dhimanaysaan afkii iyo sanka u hayey baan idhi buuri war balaaya ku dhacdaydu culusa mise dhig baan maagay oo socodsiiya wallaahi waaba bakti ridii carruurta loo lisi lahaa in qaadka aad ku bixisid anna u soo qaaday waaba bakti buuri xeeladaha qaadka unbaa keeni kara waan celiyey buuri oo ridii intaan adhigii dhex dhigay oon halkii ay joogtay dhigay oo wax seexda iska dhigaan subaxii idhi buuri baladiga dareeriyo markii alla ridii waa bakti markaasaan imisaan wardiyey oo wadaad mu'minaan ahay waxoogaaga aan wardiga ku akhriyahay rida aan iskaga bixiyo idaasow kaama waayn wataahad aniga markii nin baa laga sheegay reer koonfura weli ma ihi ilowsa walxaal lay tusaay
سو ما ركتد بودينه هبل كهبلي أنا نولما وصودا هي وادك تغيير وهبل بانهاي وهذا ركتابو جدادي وحا كدحاي ولا يا بالله هبين دب هداد مرنتا عرورتا مid loo waay doona ya sida yaa dilay taysaga dilay muxuu hadana ku sheeganaya inuu walinimo qaato raba hadana ya inuu ridiisi walinimo ku qaato raba hadana qaadka keena xaaladahaas oo dhan qaadku wax badan buu keenaa qaadku wuxuu keenaa baa la yiri cid adan baahidaada waxba u weydiisateen oo dhan inaad qaad wuxuu weydiisato dartii seediga intaad wacda inaad tiraahdo qadaan laahay haaf bariisa waxaan ku gata ii soo dir lagama yaabo laakiin inaad tiraahdo war seediyo maanta qayilkii baa naga xunan noo qaad aanu qayilne waa wax fudud weey waxaad u fudud weey ninkii tuwaakada cuni jiray oo guriga sodohdii baa lagu iibiyaa la yiri oo lacagna waayo isagoo xaraara xumi hayso islaantii u soo diray inay sodohdii ka soo amaahato oo sodohdii markay islaantii ka soo amaahanaysay islaantii ilaan way maqnaydoo dibadday ku maqnayde gabadhii oo gurigii gashay islaantiina ay albaabkii ay ka sii jeedo oo ay foorarsatay islaantii oo dibadda ka timid oo ay sii jeedo bay leedahay tuwaakadii miis isagiyo tuwaakadii waa isku nooc weey waa isku qabiil weey ay tuwaakadii miis leedahay oo inay ka amaahato ka daysato ay rabto intuu aamini waaye isiri islaantaadii waa tan sii jeedee la hadalo ii kordhi ku dhaqafa kaliya igu dayna buuriga kordhi ku tuwaakada ii kordhi saasadohdii oo sii jeeda ayuu dawada ka qudinaya oo leeyahay na kordhi dhe buuri na xogaa noo biiri dhabahashu naguma filnee buu leeyahay waxaasi anshaxumadaas ay leeyihiin waxaynu nidhi shanta islaamku ilaaliyay shanta baqaadku waa ku xadgudbaa maalkii wuu ku xadgudbay naftiin waxaan nidhi diintii waa ku xadgudbay naftiina wuu ku xadgudbay oo caafimaad darru keenay xataa bulshadii buu burburinayaa jaraa'imta dhacdu qayb badan ka yahay dadka islaynayay in badan qaad bay isku dileen inta islaynaysaay in badan oo kamidii maxay isku dileen dee qaad bay isku dileen taaduna waad og tahay anuguna waan ogahay waxa weeye marka caruurtaadii oo gaajaysan baad ula dhaqaaqi xogaagaad soo hesha inaad ku qayisho qaad baa keenaya waxaan marka leenahay aqligaaga marna waa tanaad mirqaansan tahay markaad xogaa qaadato marka aad xogaaga weydana murugaad u dhimanaysa waa qosol iyo qamuumiye isku xigu keenayaayo aqligaaga wax badan buu ka bedelaya maanta markaad faraxsan tahay ku baraxan tahay ninka balwada leba yaqaanee markay ku baraxan tahay faraxsan tahay hadii awrka geelaaga u weyn keen lagu yira oo iga fi sabiililaahi baad leedahay laakiin hadhow markaad meesha ka kacdo hor iyo awrkayga tolo maxaan ku bixiyay adaa dib u murugoonaya waxaa laga sheekeeyaa inuu nin Talyaaniga iyo Ingiriiska xilligoodii ka ganacsan jiray dhalooyin dahab ah oo yar yar intuu sii qaado galbeedka geyn jiray isagoo laba dhalo oo dahab ah wata ayuu qaad cunay intuu galbeed galay markuu bahalkii hareeriga ha ka dhargay yuu mirqaamay labadii dhalo oo dahabka ahaydna halkan ay u yaalaan wuxuu yiri dhaladaasaan iibiyay waxa weeye cokod iyo saan baan ku iibiyay harkaan ku iibiyay harkii sonkor baan siiyay sonkortii milix baan siiyay milixdii dhar baan siiyay dharkii ari baan siiyay arigii geel baan siiyay geeli 100 buu noqday halkaasu doollu daaqayo 200 halaad buu isu bedelay tii kalena 200 halaad buu ka sameeyay dhaladii way talaaya geela uu dhaqayo dhani dhaladaasu ka iman doona dhaladiina way hortaalaa wali saan baan siiyay milix baan ku celiyay hargeysaan geeyay barbaraan ka soo gaday waan soo laabtay xagan laas aanaan u bedelay xagan aan ka soo galiyay geel baan buuhood la kaga gaday ari baan balad xaawo ka soo siiyay saasu isugu celceliyay wuxuu wadaba afar geel oo dayr joogo oo doollo joogo awrtii qooqan tahay buu ka samaystay labadiina wuu hayaaya labadii awr baa isku soo boodayo labadii si awr oo isku soo booday buu tasawurtay oo dud yiri buu labadii hal isku dhuftay deedna wuu ka kacay meeshiiba labadii geele la dhaqay away labadaa dhal uu ka samaynayay waxaasi waa khayaaliga maskaxdiisii baan joogina uu qaadku abuuro wey maxamed xareed waa nin odaya wuxuu iga sheekeeyey inuu caraabay isagoo dadka tuulooyinka joogi jiray ahaa weligii qaad cunin buu intuu tuulo yimid baa qaad loo qaaday
wuxuu yidhi xogaa baan ka cunay oo waan carraabay oo galabtii markaan maqaaxi sii marnaba 2 koob oo shahan ku dhuftaa show tan iyo badh baan tegay oo cirkaaban maraya gurigii markaan habeenkii u hoyday yaa islaantii iyo carruurtii reerkii waa hurdaan gooweyn oo shaalana waan wataa buudho dhaxanta ka huwaday islaantii iyo carruurtii markaan arkay dameer xaabo halkan lagu rogayna wuu yaallaa buuhi miici miidhan oo galool iyo qansaxa wuxuu yidhi markaan eegay baa dhaxan baa i qabatay dabkii baan saluugayo intaan dameerkii xaabadaha soo qaaday baan hal mara dabkii dul dhigay buuhi dabkii baa hawada galay ma jooga caqligiisi ma jooga dabkii markuu hawada galay baa waxaan ku fikiray go'aygan shaalka intaan dhakada dabka ka saaraynan hoos ugu soo xajiyo kuwii shaalka markaan dul saaray oo jagagagac yidhi uu dhexda ka booday dabkii yaani buu niyow maad xajisidoo gacmahaan la galay buuhi halkaa markay maraysayba islaantii kacday oo islaantii baa biyo meel yilay ku sii daysay oo 9kii carruurta ahayd islaantii baa ii badbaadisay buuhi waxaan weligay dhaqan jirayna oo aan dadkii ahayn oo duunyo ahaa wixii xaraysnaa ee noolaa maahe wixii mood iyo aan dhaqaale haystay iyo alaabna halkaasaan ku burburiyey buuhi qaar qaadaa burburisay buuhi oo casar la ii qaadeenoo tuulo ka carraabahay miyir qab miyaad u taqaanaa taa adigu marka ninka aqalkiisii gubahaya oo 9 carruur iyo hooyadood jiifaan oo dabka albaabka kaga ololinaya oo intuu weligii soo dhaqanayay 30 sannadood halkaa ku waayay hal habeen ninkaasi hadda uu dhintay allah u naxariistay markaad tidhaahdo maxamedow qaad wax alla wuxuu hayuu kugu dhufanaya wuu ka xanaaqi jiray markii dambe wuu ku khafiifay odaygii qaadku marka wax wanaagsan maaha diintu u daran yahay oo caqligu u daran yahay oo wadajirku u daran yahay oo nabadgelyadu u daran yahay oo war waxaynu inagu leenahay maaha waxani inagu ma lihin ma beeranno ma naqaano alla ka cabsina maaha ninkii kugu yidhi waa alla ka cabsi qaad been buu kuu sheegay ninkii kugu yidhi qaad baa alla ka cabsi keena been buu kuu sheegay dadka wanaagsan ilaahay way ka cabsan jireen iyagoon qaadna cunin